waxaa jira guriduug ah oo magaalada ka baxsan waxaana dadka degan ay ka sheekeeyaan qolka nambarkiisu yahay 7. qolkan qof kasta oo gudaha u galo lama arko mar dambe. haddii aad naftaada qiimayso ka feker 2 jeer ka hor inta aadan u tallaabsan albaabkaas. waxaa jiray wiil lagu magacaabo Axmed, wuxuu ahaa dembi baare da'yar oo firfircoon. wiilka ayaa helay wicitaan sir ah oo ka yimid xafiiska booliiska. waxaa la sheegay in guri duug ah oo uu hoy u noqday dhacdooyin qarsoon oo naxdin leh. markii uu Axmed gaaray goobta, albaabka guriga waa uu furmay, wuxuuna galay qolka hore. guriga waxa uu ahaa mid aad duug u ah, boorna uu ku daboolan yahay, derbiyada qaarna ay dildilaac ka muuqdaan. Axmed markii uu gudaha u socday wuxuu dareemay hawqabow oo ku duwan inta kale ee deegaanka. wax kasta waxay u muuqatay caadi ilaa uu arkay albaab yar oo ku yaala derbiga gadaal ee qolka weyn. qolkaas waxaa lagu qoray qolka nambarka 7. Axmed markii uu albaabka furay wuxuu arkay qolka oo mugdi ah. derbiyada waxaa ku qornaa sawiro iyo qoraallo aan la garan karin cidda samaysay. sidoo kale waxaa jiray kursi duug ah oo dhex yaala qolka, roog gubtay iyo telefoon qadiim ah oo isdhinac yaala. cod qarsoon ayaana ka soo baxayay derbiyada, waxaana lagu dhahayay Axmed ka bax, Axmed ka bax, Axmed ka bax, yacni Axmed ka bax qolka. laakiin Axmed wuu istaagay isagoo sheegaya ama dhahaya, anigu waxaan ahay dembi baare, waana baaraya qolkani. weliba isagoo mooda in uu la hadlayo qof oo qolka dhex taagan ama dad ku jira qolka. markii uu u tallaabay gudaha, albaabkii gadaal si lama filaan ah ayuu u xirmay, iyo cod kale oo lagu yidhi qofkii baaraya qolkan wuxuu noqonayaa qayb ka mid ah sirta qolka nambarka 7. Axmed wuxuu bilaabay in uu sawiro qaado, laakiin markuu muraayadda u jeestay wuxuu arkay in uu qolka keli ku jiro. balse sawirka muraayadda waxa uu muujinaya isagoo jiifa dhulkoo dhiig leh, indhihiisuna ay madow yihiin. cod kale ayaa ka yimid telefoonka qolka, weliba isagoo lagu dhahayo, adiga ayaa xiga, adiga ayaa xiga. waxa uu dareemay gacmo qabow oo qoorta ka taabanaya. wax kasta waa uu isku dayey, laakiin albaabkii gadaal ayuu ka xirmay. dhawaaqii codka wuxuu noqday mid sii xoogaysanaya, magaciisuna ku soo noqnoqonayo, weliba ayagoo ku leh Axmed, Axmed, Axmed. derbiyada qolka ayaa bilaabay inay dhaqaaqaan sidii in ay nool yihiin. meel kasta oo uu Axmed u socdo, codad cusub ayaa ka soo baxayay. qof kasta oo hore u galay qolka ayaa ka muuqday derbiyada, sida wejiyadooda madmadow, dad indhala iyo qaar si foolxun u dhoola caddeynaya. waxayna ku eedeeyeen Axmed, weliba isaga oo leh, adiga ayaa hadda beddelaya iyaga, adiga ayaa hadda xiga. Axmed ayaa aad u cabsaday, wuuna geliyey. Axmed wuxuu isku dayey inuu albaabka jebiyo, balse wuu adkaaday. qof kasta oo uu isku dayo waxay ahayd sida inuu qolka leeyahay awood gaar ah oo uu qof ku haysto oo kale. ilaa ugu dambeyn telefoonkii uu mar kale soo dhacay, waxaana lagu yidhi qolka nambarka 7. qof walba wuu soo galaa, laakiin qof walba kama baxo, midkood waa in uu beddelaa kan kale. Axmed wuxuu isku dayey in uu ordo, laakiin dhulkii qolka ayaa noqday mid aan dhammaad lahayn. kursigii duugga ahaa ayaa si tartiib ah ugu soo durkay, isagoo ka dhigaya inuu fadhiisto. markii uu albaabka ugu dambeeyey uu furnaa, dadkuna ay ku sugnaayeen bannaanka, waxba ma aysan arkin. qolka nambarka 7 weligiis ma uusan soo muuqan, laakiin Axmed ayaa noqday qayb ka mid ah sirta qolka nambarka 7, sida kuwa hore u galay oo kale. dibna ma uusan u soo laaban Axmed, ilaa hadda waxa uu ku jiraa qolkaas. haddaba markaad maqasho wicitaan sir ah oo ku saabsan guri duug ah, ka fikir 2 jeer ka hor inta aadan galin. qolka nambarka 7 ma aha meel caadi ah. haddii aad hesho, waxaa dhici karta in adiga aad noqon doonto martida cusub weligeed. halkaasi ayaadna ku jiri doontaa inta noloshaada ka dhiman.